دارتنا الله يقدر والله بالله بالله تالله تالله waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan sheegayo runta runta oo kaliya sheegayo runta oo dhameystiran sheegayo waxaan run ahayna aanan sheegaynin xirali maxkamadu waa maasan tahay Dr. Ciise Maxamed Cayrow waxaan ku weydiinayaa su'aasha ugu horeysa ku weydiinayaa waxay tahay waxbarashadaadu maxay ku saabsan tahay waxbarashadaada aqoontaada aad leedahay maxay ku saabsan tahay medicine surgery bachelorkayga waxaa waaye medicine masterkaygana waxaa waaye general surgery sidaas darteed waxaa tahay dhakhtar caafimaadka ah sidaas waaye specialist okay shaqada hadda aad haysid ee aad ka haysid cusbitaalka caalami maxay ku saabsan tahay maxay tahay waxaan umaleynaa shaqadeydii marka hore inaan kuu sheegay maadaama dhakhtarka isbitaalkaan ahay isbitaalka gaasmanaan ka ahay gaasmaha isbitaalka aniga ah dhakhtarka oo qaybta surgery ku qoran aniga ah ciise waa maasan tahay dabcan kiiska meeshaan aad u timid waa la socotaa waa ka wada dhegsanahay intaanan su-aasha u gelin Dr. Ciise imise sano ayaad ku jirtay xirfadda caafimaadka oranay ilaa ma yeerisa 11 sano okay marxuumad luulo xilliga lagu keenay alla yarxam gabadha aan kiiskeeda u joogno xilliga lagu keenay ee cusbitaalka caalami la keenay yaa qaabilay oo gargaarkii ugu horreeyay u fidiyey aniga qaabilay Dr. Ciise okay marxuumadda xilliga la keenay cusbitaalka sidii ay ahayd ama sida dabcan waxa soo gaaray oo ka muuqday jirkeeda iyo muuqaalkeeda dhibka soo gaaray noocuu ahaa iyo waxa sababay markaad ogaatay maxkamadda u sheeg bal waxay yihiin gabadha la raxmo I think it shiftiga habeenka sanaa ku qornaa shaqada lahay marka la keenay gabadha emergency-ga joogo qaybta gargaarka degdegan joogo habeenkaas marka irida laga soo geliyay iyadoo la xambaarsan yahay marka qaar ka tirsan shaqaalaha isbitaalka soo xareeyay iyo dad la socday dadka la socday xitaa information fiican cid dhiibto sax maysan jirin gabadha keligeeda ahayd mana hadlaynin hadalkeeda aad oo very weak u ahay okay marka cusbitaalka la keenayay lugaheeda miyay ku soo gashay mise waa la xambaarsanayo waa la siday marxuumadda maya waa la xambaarsanaa isbitaalka laba iridoo leh irida hore bajaaja ka soo gelisay iridan dambana waa la soo xambaaray okay Dr. Ciise markii aad fiirisay jirkeeda oo aad qiimaysay maadaama aad dhakhtar tahay waxaad saameeyey ama sababta jirkeeda dhibka u geystay ma qiimaysay ma ogaatay kiiska marka ugu hore lagu keeno waa inaad samaysa qiimeyn maadaama dhakhtar aad tahay marka kiiska marka kow la keenay markay isbitaalka soo gashayba waxaa bilaawday smelling qof soo gubto kale yani markii qofka soo gubto smellinka uu leeyahay ama urka uu leeyahay ayaan dareemay kow aan fiirin kiiska then markii sirta saaray kadib aan fiiriyey waxaan ogaaday qofka inuu ban patient uu yahay ama yani qof soo gubto inuu yahay okay waa maasan tahay Dr. Ciise waxaad ogaatay inay tahay qof soo gubatay gubniinkaas gaaray waxaad maxkamadda u sheegtaa heerka uu gaarsiisnaa markaas heerka uu gaarsiisnaa yani as dhakhtar ahaan gubniinka marka la qiimeynayo waxaa jiro surface la qiimeeyaa jirto bukaanka marka lagu keeno kow inuu yani wax total body surface lagu magacaabo kaasaa loo kala qaadaa qayb loo kala qaadaa iyo percentage uu leeyahay gabadha 95% all of yani qof soo gubtay ayaan ahaay maysan awoodin xitaa in la gudgidiyo isbitaalka marka la soo gelin lahayna yani wax macluumaad ama information ama xitaa waa la soo gubay ay dhihi karta maysan jirin
okay waa mahadsan tahay dhanka miyirkeeda yani tabarta iyo gudniinka iyo waa noo sheegtay laakiin wax hadal haddaad ka maqashay maxkamadda la wadaag oo ay ku hadlaysay markaas markii hore maya marar badan aan la hadlay waxay tiri oo keliya waxaa waaye uuraan leh oo keliya I think uuraan leh oo very weak ah ayay ku jawaabtay yaa kusoo gubi macluumaadkaas waa la weydiiyey qolada la socod xitaa waa la weydiiyey waxay dhaheen dirisaan ahnay waxa noocaase gabadha yani so information sax maysa jirin marka aniga waxaan ku qasbanaa oo keliya inaan shaqeyno wixii surface la rabay inaan u sameyno wax hadal ah oo ka baxsan uur baan leeyahay oo ku saabsan xaaladeeda ama xaaladda ehelkeeda ku sheegtay maxkamadda u sheegay haddii ay ku sheegtay maya marar badan aan la hadlay codkeeda aada u daciif u ahay marka waxay sheegaysaa cid fahmaysa malayan marka only waxaan ka fahmay uuraan leh oo keliya okay cusbitaalka caalami meeqa saacbi oo layd ama daqiiqado yani xilliga cusbitaalka oo layd intee dhammaa oo barxumadda aad idinku la tacaalayseen well I think is body minutes in ahead oo malaynaa so bukaanka maadaama la soconin family la soconin oo aysan qof go-aan qaadan karin all surface kala rabay qofkaan u sameynaynay then 90% markaan u sameynay kadib I think family-ka inay gadaal ka imaadeen oo la wacawacay markaas kadib la ogaada informationkeeda family-ka ogaadeen dabcan 40 daqiiqo ayaa ka wadaa qiyaastii ka wadaa maasantahay intaasan